marka aad u diyaar garowdo inaad mas'uuliyad dusha saarato, marka aad u diyaar garowdo inaad qof dhan noloshiisa maamusho, marka aad u diyaar garowdo inaad qof qalbigiisa ilaalin karto, markaasaad wax jeclaan kartaa. laakiin adigoon diyaar u ahayn inaad qof dhan mas'uuliyadiisa dusha saarato, warwarka, walbahaarka, dhibaatada, kadeedka, xanaaqa, cadhada, culayska, waxaas oo dhan ee kaaga imaanaya, haddii aadan diyaar u ahayn ma jeclaan kartid qof. qofka wax jeclaanaya ee doonaya inuu qof noloshiisa mas'uuliyadiisa qaado ee dushiisa saarto waa qofka u diyaara inuu u adkaysto dhibaatooyinka ka imaanaya oo dhan. waa qof u diyaara inuu wax kasta oo qofkaas kaga yimaada uu dushiisa saarto. ma aha jacaylku intaad qofka jeclaato hadhowna tidhaahdo sidaan maan moodin inay dhacayso inaad tidhaahdo. ma aha jacaylka aad wax jeclaanaysaa. jacaylka wax la jeclaanayo, jacaylka qofka la jeclaanayo, jacaylka la doonaya inuu qoys laga abuuro, jacaylka la doonaya in nolol qurux badan laga sameeyo, waa jacaylka la isku ogol yahay, diyaarna loo yahay in mas'uuliyad dusha la saaro, lana doonayo in dhibaato walba oo halka ka soo timaada dusha lagu qaato. haddii aadan diyaar u ahayn waxaasoo dhan inaad kaafin karto oo aad dusha saaran karto, waxba ha jeclaanin, keligaa iska ahow, albaaba kaa xidhanna ha isku furin, dhibaatana lagu hala gelin. haddii aadan intaa diyaar u ahayn ood faraha la gashana waxaad noqonaysaa khiyaanoole. qof intuu qof qalbigiisa dhaawacay cidlo kaga dhaqaaqay ayaad noqonaysaa, hadhowna wax lagugu tilmaamayaa khiyaanoole. ha burburin nolosha bini'aadanka, ha burburin qalbiyada bini'aadanka, ha ku ciyaarin nolol qurux badan oo dhisan, ha qof farxadiisa ha burburinin oo ha baabi'inin. haddii aadan diyaar u ahayn jacayl dhab ah oo nolol laga abuuro, oo qoys gaadha, oo ubad laga dhalo, oo mustaqbal yeesha, haddii aadan intaa diyaar u ahayn ha ku ciyaarin qalbiyada bini'aadanka. dadkana farxadooda u daa, haska haystaane. marmarka qaarkood bay kelinimadu dhaantaa jacayl aan waxba tarayn oo murug iyo walbahaar oo laga dhexlayo. marmarka qaarkood bay kelinimadu ka wanaagsan tahay in qalbigaaga la dhaawaco. wakhtigan la joogo dad iyagu waxa ay dadka u jeclaadaan siday noloshooda ugu ciyaari lahaayeen, jacayl ayayna kuu sheeganayaan iyagoo doonaya inay noloshaada burburiyaan. adkaysi yeelo, fiiro gaara yeelo, meel dheerna wax ka eeg. qof kastana noloshaada yuuna soo gelin si uusan u burburin oonad hadhow uga qoomamayn, dhaawac iyo dhibaatana aanay kaaga soo gaadhin. dadka wax jeclaada, dadka doonaya inay mustaqbal abuuraan, dadka jacaylka dhabta ah sida, dadka qalbiyadooda naxariistu ka buuxdo, waa dadka u diyaara in ay mar walba dhibaatada halka ka timaado dusha ku qaataan. maankaaga ku hay in uusan jacaylku bila dhibaato ahayn. nolosha jacaylkana nolol ka adag ma jirto, waayo qof dhan ayaad mas-uul ka ahaanaysaa, qof dhan ayay dhibaato kaaga imaanaysaa. sida ilmaha yar ay hooyo u koolkooliso marka uu yaryahay ee dhibaato walba uga timaado ee ay u dulqaadato ee aanay waxba u noqonin, saasoo kale la doonayaa inaad noqoto, in aad qof dhan mas-uuliyadiisa iyo noloshiisa aad dusha saarato ayaa loo baahan yahay. intaas haddii aadan diyaar u ahayn ha ku ciyaarin qalbiyada dadkana, ha kaga ciyaarin farxadda ay haystaan ee keliya dhibaatadooda kala fogow. marka aad diyaar u noqoto waxaasoo dhan in aad iska xajin karto oo aad u adkaysan kartana, soo xulo qofka aad jeceshahay, soo xulo qofka aad doonayso inaad nolosha la wadaagto, soo xulo qofka aad doonayso inaad xiriirka jacayl la samayso. balse intaa ka horeysa qalbiyaad dhaawacaysaa, nolol baanad burburinaysaa.